daawadayaal waxaan joognaa degmada Kaxda oo maanta soo gaarsiinay barakacayaal deeq markaas ugu jirta raashin oo ka kooban bur bariis sokor timir iyo sidoo kale saliid iyo sidoo kale waxa isugu jiraan bacyaha markaasi guryaha marka la saaro cashadaha ka sameeysan maadaama maalmihii ugu dambeeyay roobab badan oo mihigaan ay ka daayay magaalada Muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka waxaan u rajaynaynaa qoysaska Soomaaliyeed ee markaas danta yar in Ilaah markaas uu garab galo sidoo kale walaalaha kale Soomaaliyeed ayagana waxaan ka codsan lahayn inay soo waxaan markaa maanta soo gaarsiinay ilaa 80 qoys ayaa halka markaas hadda markaa fadhiyaan background-keena sida markaa u jeedaan 80 qoys waxa markaa sida idin sheeg waxaan markaa la siinayaa lacag bac iyo sidoo kale saliid oo raashin iyo bur iyo bariis iyo sokor iyo timir markaasi ka kooban sidoo kale walaalaha Soomaaliyeed lacagaha soo diray ayagana waan u mahadcelinaa shaadiyan ku soo dhaweenayaa waa dhawahay horta aad u mahadsantiin sidoo Najiib sheegay waxa waay hadal oo dhan Najiiba idin sheegay wixii idin sheegi la macna horta markuu ugu horeyso waa mahadsantiin sida u jeedin ama indhiin ay qabanayaan dadka masaakiinta ama maatada oo u jeedin waxa loogu talagalay waxaan leenahay aad u mahadsantiin ajri xasanaad Ilaahay idinka siiyo dhamaan inta isku soo dardartay iyo inta isku keentay ee soo hindistay in loo keeno dadka walaalahooda waxaan leeyahay aad u mahadsantiin ajri xasanaad Ilaahay idinka siiyo waa kaasa waayahay shaadiya wad maasatahay waxa markan ku soo dhaweenayaa Dr. Abdirasaaq waxa markaa Dr. Abdirasaaq oo sidoo kale wakiil uu ka yahay ama uu qayb markaas weyn uu ka geysanayaa qaybtan samafalka maanta markaas aynu sameynano oo waliba qayb liwaax leh uu ka geysanayo isagoo markaas sidoo kale u damqaday walaalihiisa Soomaaliyeed Dr. soo dhaw waan dhawahay aad u maasantihiin Najiib iyo Shaadiya Cabdifataax aad u maasantihiin marka koowaad marka xigta waxaan aad u mahadcelinayaa walaalaha barnaamijkan soo dhiibtay ka qayb qaatay in wax la baxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa meel kasta joogan walaalo waxa jira dibadda jira oo barnaamijkan soo dhiibtay waxa jira walaalo gudaha joogo oo kamid yihiin laba degmo degmada Dharkeynley iyo degmada Wadajir labadaba aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa degmadaas teeda kale waxaan leeyahay walaalaha kale wax soo dhiibanayo waxaan wax siinayna dad masaakiin oo tabaaleysan oo aan xilligan u jeedin hadda roobkii oo la xilli roobada la galay marka walaalaha waxaan ka codsanaynaa qof kasta wuxuu awoodo inuu soo darsado barnaamijkan aan wadno hadda maanta waxaan qoodin u sameynay iyo bacay iyo lacag u sameynay 80 qoys ma sha Allah 80 qoys waxa aad u weyn waaye marka walaalaha kale waxaan ka codsanaynaa in wax alla wixii awoodaan ku soo darsadaan كلي ورد بدن رحمة ترى ولا لا عاوني إلهي أجره نجسي ولا لي وحسود يبتن خير الله سيو جزاكم الله خير ملك استيجوان عذر راجر عذر الله كبد باديو مركا ودعينا إن شاء الله وحنك ورجنا ولك حريريها نجيب وياهي أدبو ما سيهاي دكتور عبد الرزاق طبعا waxaan mar kale aan ku soo dhaweenayaa Cabdi Fataax waxaan mar kale aan sidoo kale mar labaad iyo mar saddexaad iyo kun jeer baan u mahadcelinaa walaalaha Soomaaliyeed ee markaas in soo gaarsiiyay deeqda lacageed ee marka maanta walaalaha masaakiinta ee gaajeysan aan iyagana marka afran aan ugu sameynano waxaan marka iyaga u rajaynaynaa cimri dheer iyo caafimaad in Ilaah markaasi uu ka dulqaado cudurrada marka dunida inta badan hadda saameeyay aan ugu baryeena maadaama dadka ugu badan soo diray qurbaha markaasi ku sugnaayeen Cabdi Fataax horta mahadsantahay Najiib walaalkay adiga iyo walaalkay doctorkeena iyo Shaadiya kulli waxaan rabaa inaan u mahadceliyo walaalihii lacagaha soo diray ii sheeg deeqda walaalnimo ee u fiidiyay intii doontaba u ahaato horta aad ugu mahadcelinayaa meel walba joogan adduunka haddii aan ka sheego magacyadooda waxaa ka mid ah walaalkay Idruus Cabdi Booni oo jooga Sweden walaashay joogta walaashay Zahra Cabdiqaadir joogta Holland Fahmo Dayib Mustaf iyo hooyadeed oo jooga Mareykan USA Kamal Abdi Muuse oo jooga USA Lul Maxamed Ibrahim oo joogta UK Ismihaan Ismaan Abdi oo joogta Australia Faadimo Maxamed Yaasiin oo joogta USA عذر خليف عبد الله وجوكتا كندا بلقيس فارح أحمد وجوكتا USA ياسمين ياسر صديم سلام ياسمين ياسر كل ياسمين ياسر اسفهم يسوي جوكتا UK سالم وجوكتا UK خديجة عبد الله محمد وجوكتا USA
wallaahi horta dumarka Soomaaliyeed marka la yiraahdo samafalaa la sameynaa ragga waa buusanna ayaga noogu badan waxaan leenahay horta damqashada badi waxay ku dambaysaa hooyooyinka Soomaaliyeed ilaahay miisaanka aakhiraha u saaro qof walba wuxuu baxsadana miisaanka aakhiraha u fuuleysaan leeyahay ilaahay sadaqadii wadka furataa maqli jiray ilaahay nooga dhigo annagana horta xoogeena Allah nagu anfacaan leenahay waa mahadsan tahay ninka la yiraahdo Najiib Aawe دكتورك حلمد أنا مقدره فتح سوق دواجي العد الراشين كان أدكو ترى بدن واحد سودي في دمر وبدين نجيبه واحد سودي في دمر وبدين مركز دمر كسامالد حلنا ملك ستيج جوان غير الله سيو رجوا حلنا جيفك كعة حسابه رجوا حلنا جيفك كعة رجعنا الشقية مركز رجعنا الشقية دمر كان حساب حسنا مركز والله دمر عجيب وهاي مركز نجيبه أنا كور رجع نحرس ملا معنا واي هاي دمر كوا هاي طبعا وانا نحرس بدين رجع مركز الله فيريو دمر نسكن حرس معهن مركز الله فيريع دمر كمركز وحياة قار مركز أركان وضدك عاد مركز أوقع على الحمادة أجر يا حسنا أنا لسوكو بكر ربي هيدا كسيا يندين لي هاي إلينا مقعية أيان كوجود الجرنا هي شادية كلا دقة سوق جرسية waxaa ka mid ah Maxamed Baashi Xasan oo jooga UK Maxamed Jaamac USA Xijaaz Salaad Macalin USA Sucaad Shaqlan USA Ifraax Maxamed USA Arliyo Axmed Maxamed USA Xamdi Cabdullaahi Nuur Holland Zaynab Maxamed Xasan USA Asma Xaaji Ismaaciil USA Hodan Qudac إسماعيل USA سعدية معلن كندا ما شاء الله إلهي ذين دوران ليه هاي بدل غير قبل إلهي ذين كوكو بدلو دمان تيمبو حاواي آذيات الدعاء شادي وحاول ترسلنا هالدمر لما أقول هل فقط دم بجر وياي لعل شادي عد كذا دو قبنا وحوا ما نتصون كهاية waayahay haddaan anan dhankayga magacyada aan soo koobay dadka na soo gaarsiiyay wiil ugu hore markaan shaadiya waa Xuseen Jaamac Warsame wuxuu ku sugan yahay UK ama dalka Ingiriiska Sahra Ahmed oo ku sugan USA ama Mareykanka Saadiyo Xuseen Cabdullah USA joogta ama Mareykanka iyo sidoo kale Nasra Xasan Jaamac oo Mareykanka ku sugan Ummi iimaanka Umar ayaa ku qoran qaabka u qorantaa oo akhrinaya mugti iyo sidoo kale Madiino Maxamed Jeele oo USA joogta iyo Najmo Jaamac oo USA joogta ama Mareykanka Bishaaro Maxamed Cali oo USA ku sugan iyo sidoo kale Siraad Yunis oo USA ku sugan iyo sidoo kale Salaado Jamcaale Dhuxlow oo markaa joogta Ingiriiska ama UK ayaa kamid ah dadka markaa deeqdan soo gaarsiiyay sidoo kale waxaan u mahadcelinaa walaalaha Soomaaliyeed ee ku kala sugan Muqdisho Somaliland Puntland Jubbaland koonfur galbeed galmudug iyo hirshabeelle kuwaas oo ayagana markaasi qayb ka geystay inay walaalahooda 1 iyo 2 iyo 3 wixii awoodaan ayagana markaasi soo darsaday oo ugu talagaleen inay ku afursiyaan walaalahooda markaasi dhibaataysan ee afurkaan iska bixin karin aad iyo halina qaybteeda ku jiray oo Xuseen Jaamac Warsame la yiraahdo raje ajir iyo xasanaad aan la soo koob karar baa ku saayaan leenahay Xuseen iyo sidoo kale walaalaha kale Soomaaliyeed ee ragga kale ayagana way jireen oo hore markaa u soo dhiibtay ayagana Kamaal anna la haysan 1% hal hala kale hayna macna waayahay walaalaha kale Yasmiin waa gabar waayahay walaalaha Soomaaliyeed aad baan ugu mahadcelinaynaa qaabka markaasi u garab taageen waliba dadka ugu badan ee wax soo diray waa USA ama Mareykanka reer Mareykanka aad baad u mahadsantiin ayaan leeyahay iyo reer Canada iyo sidoo kale Ingiriiska ayaa dalalka ugu badan ee wax markaa inaga soo gaareen waan leenahay aad baad u mahadsantiin Mareykanka waa wadanka ugu badan ee cudurka markaa uu ka dilacay ee corona Allah idin ka dulqaada ayaan idin leenahay walaalahayna Soomaaliyeed ee halka markaasi ku sugan iyo guudaan ummadda muslimiinta oo dhami haye doctore نجيبه وركي ورتوا بسوق جبجبي أديك شادي تفتحها سوق جبجبي كلي وحن ليه نلينا فربنا يقول قيب قات برامجك مقعد قدم سوق بكرة كلي دمانتين خير الله ينسي جزاكم الله خير وحكلوا أد وقيب قاتي دومر كسوامالات ملك استيجوجان يجن وحن ليه جزاكم الله خير كلي رجعنا وحن ليه وأركيسين معناها عيبينها أنا أفتح كاميرا دكتور مغني نجيبه نقدر باش marka dumarku waxaan la jazaakum Allah khayr markasta joogtiin wixii sadaqada la baxay oo shaadi ku soo diray Abdulfatah ku soo diray Najiib oo la fadam anigu soo diray waxaan leenahay kulli jazaakum Allah khayr wa ahsanu jazaa ila idin xifdiyo cudurradana jiran Allah iniga badbaadiyo aad u masiin Najiib dadka meel kasta joogan
waayahay aad baad u mahadsantahay doctor cabdirasaaq waxaan bixin doonaa dhinaca marka la fiiriyo hadda raashinkii inta all dhammaantood markaa way ku wada safan yihiin sida u wada jeetaan 80kii qoys way wada joogaan bacyo iyo raashin markaas ka kooban bur bariis sokor iyo sidoo kale timir ayaa markaasi u wada yaal dhammaan qoysaska walaalaha Soomaaliyeedna jazaakallah ayaan leenahay sidoo kale lacag kale ayaa la siin doonaa oo shilin Soomaali oo qoys walba markaasi u qaadanayo oo markaa oo la wada guddoonsiinayo ajir iyo xasanaad kana Allah idinka siiyo dadkii soo dhiibay markaasi gacanta weyn ka geystay qoysaskan soo tirinay oo maanta markaasi ka afriyamaba ka farxiyay walaalaha muslimiinta markaas Soomaan waliba barakacayaasha ama qaxooti markaa ku sugan oo daruufo awgeeda ku jiraan guriyo markaasi cashada ka sameeysan oo roobkana aan celin karin markastana soo fiiriyo maalmahan magaalada Muqdisho waxa ka bilowday roobab mahigaana oo markaasi xitaa guriyo waaweyn sarta xitaa dad badan hadda ku dhintay darad waxa lagu dhintay isbartiimada Ceelqalow ayaa markaa lagu dhintay darad oo ilaa ku dhawaad 4 qoys 4 qof ayaa ku dhimatay waliba waa guri sara maxad markaa hadda ka malayn kartaa cashada kale dad markaasi guriyo buush markaa ku degan waayahay waxa markaan bixin doonaa markan raashinkii bacyihii iyo sidoo kale markaa lacagtii ayaan u qabin doonaa aad baad u mahadsantihiin kana nimcadu ilaahay ifka idinku siiyay in hadaad ka dhiibtaan miyo alla idinka jeedsan nimcadu ilaahay ifka idinku siiyay in hadaad ka dhiibtaan miyo alla idinka jeedsan kama badalo adkaysiga ma waaye inaan ku adeegaan u istaagay milixdee waa ajar aan la koobayn haddaad midka aan waxaysan afturkiisa siisee ilaah baa uu abaalgudee walaal afuri maanta walaal afuri maanta kama badalo adkaysiga ma waaye inaan ku adeegaan u istaagay milixdee waa ajar aan la koobayn haddaad midka aan waxaysan afturkiisa siisee ilaah baa uu abaalgudee walaal afuri maanta walaal afuri maanta